والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ha ilowina qoraxda ka soo agdhowaan doonta uuminka ha ilowina diiwaanada camalka ee laysku siin doono gacanta midig ama bidix ha ilaadina buundada jahannamo ku kortaan idinkoo socda oo jahannama hoostiinu tahay iyadoo cartamaysa ha ilaadina buundada iyadoo rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam ag taagan yahay isagoo leh allow badbaadi ha ilaadina kalbadaha iyo biraha jahannama iyadoo u dafaysa dadka xagga naarta haawiya ha ilaadina buundada ka dhuuban timaha kana af badan seefta ay dadku ku marayaan sidii ay kala ahayd acmaashoodii waxaa dadka ka mida kuwa xagga naarta loo jiidanayo ha ilaadina noocyada cadaabta kala duwan iyo naarta iyo waxa ku sugan oo kulayl iyo olol iyo hanfi iyo zamhariir ah maalinta dhulka loo bedeli doono dhul kale sidaa oo kale bayna ahaan doonaan cirarka iyaguna dhammaan uumanka waxay u soo banbixi doonaan alle waaxidka aan laga hor imaan karin waxaadna arki doontaa mujrimiintii gaboodfalayaashii kuwii ku gaaloobay tawxiidka alleh tawxiidka islaamka guud ahaan mushrikiintii kuwii ku caasiyey alleh maalintaas oo iskula xirxiran silsilado macnaheedu waxaa weeye gacmahooda iyo cagahooda oo lagula xiray luqumahooda silsilado dharkoodu wuxuu ahaan doonaa laami dab aan damayna wuxuu dabooli doonaa wejiyadooda si uu alle ugu abaalmariyo qof walba wixii uu kasbaday run ahaantii alle waa ku dheereeyaa xisaabta qur'aankani waa farriin uu leeyahay aadanaha iyo xujacad oo korkooda ah si loogu digo iyo si ay u ogaadaan inuu ilaaha keliya yahay allah cidna xaq uma leh in la caabudo alla ma ahee iyo inay waxgaradka kuwaana qaataan أترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ha ilaadina malaa'igta mas-uulka ka ah naarta ee qalqallafsan ha ilaadina in ahlu naarka ay ugu yeehan doonaan naarta gudaheeda ba iyo balaanbal hoog iyo halaag mana laha cid ka furi doonta jeebadaha iyo jiijiilayaasha iyo silsiladaha naarta ah waxaa laysugula xiray foodaha iyo dhaadadka wejiyadoodana waxay la madoobaan doonaan dulliga macaasida waxay ka dhawaaqi jidadkeeda iyo godadkeeda iyagoo la booya cadaabta aan kala go'ayn maaligow maalig waa furahayeenka naarta waxay odhan maaligow waxaana cusleeya birihii maaligow waa shiilmeen hargahayagii maaligow tani geeri baa nooga roon maaligow inaga saar dib dambe macaasi uma noqon doonna markaasuu u jawaabi waaye kadib ku dufooba dhexdeeda waadna ku waaraysaan
maxay hadda oohin idinku taal markii aad xaqa diideen maxay oohin idinku taal idinkoo ka horjeedi jiray diinta alleh maxay oohin idinku taal idinkoo dhillaysan jiray maxay oohin idinku taal idinkoo aan xaasaskiinna fari jirin xijaabka iyo is-asturka iyaguna qaadan jirin maxay oohin idinku taal idinkoo qaad khamri iyo xaaraan cuni ama cabbi jiray maxay oohin idinku taal waa tii aad salaada dayici jirteene maxay oohin idinku taal waa taydaan wax u bixin jirin sake iyo sadaqa ah diinta alleh maxay oohin idinku taal idinkoo waalidkiin ku caashin jiray maxay oohin idinku taal idinkoo khiyaano iyo isdabamaryeen iyo dhagar ku socon jiray maxay oohin idinku taal idinkoo hawadiinna diinta ka hormarin jiray oo markay diintu hawadiinna waafaqdo aad qaadan jirteen haddii ayan hawadiinna waafaqinna dhinac isaga tuuri jirteen wuxuu alla yidhi isagoo ka warrami taa قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وين عبن دونان maaligow furhayeenkii jahannama rabbigaa ha noo yeela dhammaan wuxuu odhan doonaa xaqiiqdii waad ku waari doontaan weligiin dhab ahaantii waxaan idiin keennay xaqii muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo qur'aanka uu la yimid laakiinse badankiinnu waxaad u haysaan naceeb xaqa suuraysa naftaada addoonkii allow haddii aad tahay mid ku caasiya alleh oo aad ku dhimato toobad la'aan suuraysa naftaada oo ku jirta togoga jahannama adigoo cuntadeeda qadhaadh ee qodxaha lagu margada ah iyo sharaabkeeda sida saliidda karaysa ah adigoo cunaya oo cabbaya subax iyo galabba bal eegoo haddii aad dhimato adigoo weli ku sii jira macaasiya dunuub eegoo jidhkaagu miyuu u dulqaadan karaa cadaabtaa may wallaahi uma dulqaadan kara cadaabtaa sidaa awgeed daar ilaah u shaqayso dariskaa u ahaan nebigii alla doortay daarta aakhiroo weyne daldaloolka lahayne een duugoobin warqeed een weligeedna dumayn daayin uu dhismaheeda dul iyo hoosba ekeeyey dariiqeeda albaabka daawashada aad ku farxayso